mudanayaal waxaa hortayda taal digreeto madaxweyne ku taariikhaysan 17kii February 2022 digreetadan waxaa madaxweynuhu ay ku saabsan tahay ansixinta iibka dhulka degmada dhulka dawladda hoose ee degmada Garowe kalfadhigii ka horeeyay mudanayaal October 25 furmay ayaa golaha loo soo gudbiyay kadib qoraalkaas waxba ka khaldanaa baaritaan marka aan sameynay inaanay soo marin habraaci shaqada ayaa cadayd kadib dib aan ugu celinay madaxweynaha iyo madaxtooyada waa la soo mariyay habraaceedana wuxuu ahaa in duqa degmadu uu la wadaago wasiirka arrimaha gudahana golaha oo wasiirada keeno golaha wasiirada laga ansixiyo kadibna madaxweynuhu qoraalkiisa digreetada oo sidaa ku soo codsado oo golaha uu soo gudbiyo maadaama ay habraaca shaqadu marin waa celinay kadib waxa loo soo gudbiyay guddiga joogtada marka golaha fasax buu ahaa 17kii February inay arrinta wax ka qabtaan mudanayaal sida aan ognahay arrimahan oo kale iibka marka ay tahay hadii ay ka badan tahay sida uu qabo qodobka dastuurka 12aad farqadiisa 3aad iibka dhulka dawladda wixii ka badan 50,000 waxa golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa go'aan ka gaaristeeda iska leh sidaa daraadeed guddiga joogtada markii naloo keenay dood baan ka galnay waxaan nidhi arrintan goloweyne u taalaaye goloweyne ayaan horgeynaynaa si ayagu markaa go'aan uga gaadhaan maanta hawshaas inoo taala aynu u fadhinaa annaguna ilaa iyo November ilaa maanta ay tahay bishii 7aad 9 bilood baan ayay inala taalay arrintaas inaga codsanayay shaqo badanna way waxaan dhiban tahay waxaan ka codsanayaa digreetada madaxweynaha 17kii February 2022 ku taariikhaysan in xogayuhu golaha ka akhriyo warqadda ka soo baxday xafiiska madaxtooyada dawladda Puntland ee tirsigeedu yahay 2022 Garowe Febraayo 17 2022 ku gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland ujeedo ansixin iibka dhulka dawladda hoose ee degmada Garowe mudane gudoomiye waxaan halkan kugu soo gudbinayaa ansixinta dhulka dawladda hoose ee degmada Garowe oo lagu ansixiyay shirkii golaha xukuumadda dawladda Puntland ee 17kii bishii Febraayo 2022 dhulkaas oo cabirkiisu yahay 39 laguna iibinayo tartan furan dhulkaas oo laga maarmaan u noqday in la iibiyo si dib u casriyeyn loogu sameeyo xarunta dawladda hoose ee degmada Garowe sidaas daraadeed mudane gudoomiye waxaan ka codsanayaa golaha wakiilada dawladda Puntland inay ka doodaan kadibna ansixiyaan si waafaqsan qodobka 52aad farqadiisa 3aad ee dastuurka dawladda Puntland wada shaqayn wacan سعيد عبد الله دني مدحوينها دولة بوتلان وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال وعن ربا قضبك الدستوري اللبية كنتون هي فرقدة الصدحات نورتينا كاخري إن أمريكا كواد سيدا وودي جاي هاي عن ذي لو داغو قضبك اللبية كنتونات وكور رميا جديدة هنتيدا ومضى فرقدة الصدحات waxay u qoran tahay sidatan hanti kasta oo qiimaheedu ka yar yahay 50,000 oo dollar waxa awood u leh iibinteeda golaha xukuumadda wixii ka badan 50,000 oo dollar waxay u baahanaysaa ogolaanshaha golaha wakiilada waana sababta codsiga madaxweynaha xafiiskiisa uga yimi oo soo qoray arrintan ay golaha hortaala waxaan gelaynaa codki حلم عبد الرحمن جابري بان سينايا بسم الله الحمد لله قدوميها قولها وكيلada عبد الرشيد يوسف جبريل قدوميها كحيان كاللباد إسماعيل محمد ورسام محمد حوغيها قولها وكيلada agaasimayaasha golaha wakiilada howlwadeennada xubnaha sharafta badan ee golaha wakiilada saxaafadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
mudana guddoomiye mudanayaal gurigan laga hadlayo oo la madaxweynaha soo gudbiyay oo waxa weeye baarlamaanka horyaal waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo aan warbixinna ka siiyo gurigaas sida la sheegay wuxuu yahay 30-90 waxaana u bannaan dhul aad u weyn oo kale gurigaas waxaa ku xeernaa guryo dad shacabi leeyihiin oo waqtiyadii dadku dawladdu dhacday la dhistay guryahaas waa la dumiyey waxaana laga dumiyey dan guud in lagu qabanayo oo degmadii la dhisayo oo la weyneynayo oo la hagaajinayo haddana waxay taagan tahay in iib loogu soo gudbiyey golaha wakiilada gurigaas qandaraaskiisa waa la bixiyey waana la dumiyey si loo dhiso isagoo dumintii ku socoto 2021 bay golaha deegaanka degmada Garowe waxay u ansixiyeen 2021 Beljiga in lagu dhiso gurigaas go'aan baana lagu soo saaray saasa qandaraaska lagu bixiyey lagu duminayay lagu dhisay mar labaad ayaa la majaray habaabiyay waxaana loo dhigay meel kale waxaana hadlay guddoomiyaha guddiga amniga ee guddiga joogtada ah wuxuuna sheegay gurigaas intii cod la geliyey oo golaha deegaanka la isugu yeeray in dekreetooyin madaxweynuhu soo qoray oo ku codsanaya guriga in la gado gurigii hore ee madaxtooyada hore ahaan jiray oo wasiiradu wasaaradda ay deganeed wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda duulista hawada in laga saaro oo degmadu halkaa u soo wareegto gurigaasna la iibiyo dekreetooyinkaas ayaa cod la geliyey golaha deegaanka oo markii hore oo golaha toos madaxweynuhu ugu soo gudbiyey oo guddoomiyaha golaha wakiilada guddiga joogtada ay yiraahdeen habraaca la soo mariyo habraac jaban ayaa la mariyay oo dhanka golaha deegaanka guddoomiyaha guddiga amniga ka hadlay inaan cod la gelin gurigaas wuxuu kaloo ka hadlay in majara habaabin iyo amni xumo ka dhacayso waxaan u diray rag badan oo golaha wakiilada ka mid ah codkaas dadkuna dabcan baraha bulshada Itaalay waa wada dhageysteen halkan waxaa noogu yimid dadweynihii ku areereysnaa oo ka cabanaya waxaana u gudbinay xoghayaha dhammaanna golaha wakiiladu waa ogyihiin maadaama ay sidaas tahay annagu waxaanu nahay golaha wakiilada dowladda Puntland xubno ka mid ah waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta waxaan si toos ah ugu shaqo leeyahay dowladaha hoose oo baarlamaanka wakiil aan uga ahay waxaan halkan ugu soo gudbinayaa inay sifo sharci darro ah ay soo madhay oo waliba kuma jira habaabiyaan xagga xukuumadda oo ay wax badan ka ogeyn waxaan u arkaa oo aan ka codsanayaa golaha wakiilada amni maadaama golaha deegaankana isla bishii koowaad ay soo dhigeen waraaq baraha bulshada ay guriga iyo ku diidan yihiin guri kale oo ku mataansan oo meel dhexe maraya oo nidaam sharci darro lagu dhisay oo gurigii ahaa korontada degmada oo dad public ah dad macnaha ay dhisanayaan ganacsato ah sifo sharciyana aan marin golahana la marin oo aan golahu soo ogolaan la ogolaan oo iib la marin gurigaasina wuxuu ku yaalaa toonka magaalada oo degmada laami baa u dhaxeeya guriga degmada oo leeyahay 30-90 way duruuf ku xeeran oo lagu gadi karaa ma jidho 4 jid buu leeyahay qorax ka soo bax jid baa ka mara waqooyiga jid baa ka mara koonfurta jid baa ka mara galbeedkana jid baa ka mara meel ka habboon oo guri lagu dhisi lahaa ma jiro maadaama ay sidaa tahay waxaan golaha wakiilada ka codsanayaa inaan gurigaasi sifo sharciyana ma marin waana lagu danaystay gurigana waa aragteen waa guri la dumiyey oo loo dumiyey in lagu dhiso 320 iyo 120 uu golaha deegaanka ka hor sheegay guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Garowe 403 isa saaran ayay dhisi ka dhaa shacabka diyaar u ahaa inay bixiyaan annaga golaha wakiilada diyaar u ahayn mar walbana waxaynu ku dhisanaynay meelaha muhiimka inaynu ka qayb qaadano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal kooranku waa 43 codayntuna waxay u dhici doontaa ogol diidmo iyo aamus waana hal dheeri
mudanayaal ansixinta iibka dhulka dowladda hoose ee degmada Garowe yaa ogol yaa diiday yaa ka aamusay mudanayaal codayntii ansixinta iibka dhulka dowladda hoose ee degmada Garowe waxay u dhacday sida tan kooramku waa 43 ansixinta iibka dhulka degmada dowladda hoose ee degmada Garowe ogol waa 5 mudane diidmo waa 27 mudane aamus waa 12 mudane 43 ka codsaas ku dhayn sidaa daraadeed codsigii madaxweynaha ee ahaa ansixinta iibka dhulka dowladda hoose degmada Garowe sidaas uu galuu ku diiday mudanayaal idinkuna waa maasantiin